السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. maanta waxaan doonayaa inaan soo gudbiyo god ka mid ah godmaansiyada dhifka iyo naadirka ku ah suugaanta Soomaalida ee la oran karo waa ay dihin yihiin ama adeegsigoodu waa ay yar yihiin. Godkaas waxa magaciisa loo bixiyay ama inuu bixinay jiibta. Sanadihii 2009 ilaa 10 oo aan waday xog ururin ku saabsan culumta maansada oo aan buug magacaas leh qorayay iyo waxaan la kulmi jiray halabuuro kala gedisan waxaan wax ka weydiin jiray godadka kala gedisan ee maansada Soomaalidu ay ku fadhido. halabuuradii aan waaga la kulmay waxa kamid ahaa Abwaani Saciid Ibraahim Dool Gurey oo ah maansiyahan iyo jilaa ku nool magaalada Hargeysa. marka godadka maansada waxa inta badan laga helaa ama laga dhaxelaa suugaantii kala gedisneed ama hees hawlaadii. Saciid Ibraahim Dool godmaansiyada uu soo kordhiyay waxa kamid ah godkan jiibta. waxa jiray hees dhaqameed soo jireen ah oo ciyaalku ay oran jireen saddex naas la kiila joogay aabahana hooyadana. marka waxay lahayd cod soo noqnoqda oo ah saddex naas la jurgunu kiila joogay jurgunu aabahana jurgunu. maadaama ereygaas ku soo noqnoqonayo waxa uu Abwaan Saciid Ibraahim Dool Gurey qudhiisu bixiyay godka magacaas aynu hadda adeegsanayno ee ah jiibta. godkan waxa halbeeg u noqonaya hooyaleeya. tusaalayaasha kale uu godkan leeyahay waxa kamid ah hees dhaqameedada maylinkayga fool maroodi sow ma moodid iyaduna waa hees dhaqameed dhawaan ka maqlay Abwaan Cabdiqaadir Qalinle. haddaba marka laga yimaado godkaasi inuu soo jireen ahaa waa ay yareed inaan arko hees ku fadhida oo dhammaystiran. tusaale ahaan heesihii ugu dhawaa aan horaanta maqlay waxa kamid ahaa tateexda qalbigayga tan ku tallaalan ee uu sameeyey Abwaan Khaliif Faarax Xayir kuna luuqeeyo Awaale Aadan. laakiin waxaad moodaa heestaasi inay godka kolba ka guurayso oo meerisyadeedu ay kala dheeraanayaan. sanadkii 2016 waxa soo baxday hees la yiraahdo Dhafortaabad waxa sameeyay Abwaan Axmed Cantar waxaana codkeeda ku qaada fanaanada King Jama. heestaas waxay ku fadhidaa godkan aynu jiibta u bixinay. meerisyadeedana waxa kamid ah dhinacayga inta dhooban wiliga ah eedan baalo isla dhaafa ii dhawaaqa ma dhageysto kaftan dhowna uma dhaafo kuna dhowray muddo dheere dhuux warkayga dhaayahaygu ha dhargaani aan ku dheehdo ha ka dhuuman ha ka dhaaran hana dhaafin lawad dheesha dhismo qoysna ha dhantaalin dhafortaabad dhugan weydi mana dhaadid qalbi dhoohan wadhadhaabe hoosu dhaadhac hadal dhiiran oo dhabka ah ii dheh maanta warka dhayda ka dhalaali ha isdhuubin ku dhibtooday ku dhawaaqay dhuncadaaday adna dhaylo kaa dhammaatay dhagabeeshay isdhex yaacday oo dhexmootay ima dhantid aqal dhowrsan dhigihiisu waa dhalaane reer dhamaysa kaala ii dhis ha isdhiibin idhageyso idhaweyso oo idhowro ina dhiibo ubad dhiiran oon ku dhaato. dhextaalkii baa soo noqonaya dhafortaabad dhugan weydi mana dhaadid qalbi dhoohan waa dhadhaabe hoosu dhaadhac hadal dhiiran oo dhabka ah ii dheh maanta warka dhayda ka dhalaali ha isdhuubin. Abwaan Axmed Cantar waxa kaloo aan weydiinay jiraan suugaan kale oo uu ka sameeyay godkan. waxaanu ii sheegay inuu ka sameeyay hees kale oo la yiraahdo xubbi waara oo soo baxaysa bacdaliidka ciidanka kale waxaana ku luuqeeya ama codkiisa ku qaadaya fanaanka Mursal Muuse Cumar. meerisyadeeda waxa kamid ah cishqi xoogan oo xambaaray xoraan oo xilkiisu waa xanuun ee xijin waayay iyo xayuubsha oo halkeena waan xijoobe markay xeerad xasilooni isxaq dhowrto ay xishoodka xeer dhaqaaqa xaragooto xaalad la og in xiskaygu xadhka goosto oon xadlaafka xiisaheeda xadantoodo يا حبيبي حبي وراء حقيقة
hay xaggaaga oo u xaydo reer xalaala noqo xaaska aan xurmeeyo een xaqdhowro taanu xiiqo u xidhnaado een xusmeeyo xilli dhowna xayn dhalaana iyo xambaarta xiska doogay xagtin gaadhay oo xadreeyey oo xanuunkii xafladaysi loo xigsiiyey xilli fiican oo xidhiidha weeye xaajo xaaji deeqay reer xalaala xiisihii dheh guul xaqiiqa oo xariir ah xamdigeed leh xigmad eebe oo xisaabsan xaal qornaa dheh xagga ilaahay xukun yaallay xeer adduundheh yaa xabiibtii xubbi waara oo xaqiiqa hay xaggaaga oo u xaydo reer xalaala noqo xaaska aan xurmeeyo een xaqdhowro taanu xiiqo u xidhnaado een xusmeeyo heesaha kale ee godkan ku fadhiya ee soo baxay waxaa ka mid ah mid la yidhaahdo nin hankiisa oo uu sameeyey abwaan cabdiqaadir qalinleh codkeeda waxaa ku qaada fanaanada ayaan hoodo erayadeeda waxaa ka mid ah nin hankiisa hawo beena ku haflaya harcad maalin nin habeenbadh heedhamooda hamilaawe aan hirdoogle higsanaynin nin uu haysta in haweenka la halgaado ihijuuma ihigaata oo ihiifa ma hiibeeye ma hagaaja ihantaaqa mid ha dhowto naf u helan aanu hiilin i halmaama oo halleeya howlu taalla oo habkaas ma soo hoysto ma heshiino nin halyeeya higti ruux leh hadal toosan nin hiilaada halgankiisa u ah heegan mid hayaanka habka guusha u horseeda nin hubsiimo hadalkiisu hortaleey oon huf beena ku hoosaasin hadba ruuxda hal ku kooban hablahoo dhan aanu haysin mid hormooda heer sarreeya oo hannaan leh ragga haatan u horreeya oo haldoora oo habkaasa hiyigaygu sooma haybsho marka laga yimaado heesahaas heestaan isleeyahay way ugu farshaxsan tahay ama way ugu caansan tahay iyo godkan laga sameeyey waxa magaceeda layidhahaa axdi dhowra waxa sameeyey abwaan khaliif faarax ayar codkiisana waxa ku qaada suldaan seeraar guhaad dabayaaqadii sanadkii hore miyay ahayd mise sanadkan bilowgiisii maarkii qolyo dhegeysanaya kadibna waxaan ku bar heestaa ku celiya marka waxaa laga yaabaa dad inay heesta u dhegeystaan dareen tusaale ahaan deed haysta oo ay ka daweynayso mid inay murtideeda u dhegeystaan mid inay codka fanaanka qaada anigu waxaan markaa u dhegeysanay u xiiseynayay gudmaanseedkaas ay ka dhisnayd oo xilligaa ay igu yaraayeenba maqalkoodu heesaha aan ka maqlay dabeeta youtube-kii baan ka baadhay heestii waxay noqotay hees aada u farshaxana dhisma ahaan aadna u wanaagsan meerisyadeeda waxaa ka mid ahaa cirko dhuudug biyo dhiiga dhool ku hooray dhulka hawdka dhir caleen leh ubax dhashay maan dhalaalay dharab tifle roob la dhacay dhul siraaday dhayajoogsi dhugashada iga dhigan axdi dhowra waan la dhacay waanu dhuubtay waanu ku dhaartay dhalgob weeye dhabalxaad leh dhaylabeen leh loogu dhaashay oo dhalaala hayaay xubna dhiiran dheeli tiiran dhex la soohay dheerer joogle midab dheex dhol caddayntai dhakasiisaa lay dhex qaaday waa dhammaystoo tan yari dhowsan weeye ku dhadhabay intaan xaddhaqaaqay dhab jeclaadoo qalbiga dhaawiciisa dhakhtar weeye huuna dhaydamanka iyo mar dhufro mandheera dhowr margeeya qaalmo dhaalay dhowdir bunduq iyo ka dhiiba waa dhabeeraya dharkeyndhi dhooble jawhar yaa dhalaalo dhulku hooyo sii dhex qaata dhanka hob iyo u dhaqaata sii dhoweeya aroos dhaharyo ugu dhiigo dhay ku sooraa yaa u labto sidii dhal carruura misana dhabta saara dhowr ayaamo yaa ku dhaha dheha saaxil markay dhalin dheesha heela dhunta tato ubax dhiina yoogu dhiiba dhagax buur yaa mar dhoofsha xibta dheere seera dhaafta oo dhan siiya dhayda carta dhadhan xoor leh heesahaas iyo laba kale oo midna uu sameeyey abaan cabdiqaadir qalinleh midna uu abwaan haggaas sameeyey ayaa ogaalkayga ku fadhiyay gudmaanseedkaas uu helay magaceedana uu bixiyey abwaan siciid ibraahim dool gurey rabadaan kariim waxaan filayaa inaad ku dari doontaan ogaalkiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rabadaan kariim maanta waxaan doonayay inaan soo gudbiyo god ka mid ah